soo dhawow challenge-geena aan luqadda Ingiriiska inagu si iskeena isu baraynay. Halkan ayaan ka wadnaa challenge kaas oo inagu si iskeena luqadda Ingiriiska u baranayno. Maalintii waxaan soo galiyay 5 vocabulary iyo 5 phrase oo cusub ama 5 jumlado cusub sidaad u garan ogtahay. Marka dhowr shay halkan inooga socday challenge-geena ay laawna Telegram-keena ku soo biirtay waxyaabo badan oo socoto films qad gashay grammar fudud oo shaan in luqadda Ingiriiska ku saabsan ay ka helaysaa. La socon waa in Telegram-ka shanta phrase ayaan bilaabaynaa. jumlada koowaad waxay I am not feeling well. waan xanuunsanahay. I am not feeling well. waan xanuunsanahay. I am not feeling well. waan xanuunsanahay. jumlada labaad waxay I am looking for a job. I am looking for a job. shaqo ayaan raadinayaa. I am looking for a job. shaqo ayaan raadinayaa. I am looking for a job. shaqo ayaan raadinayaa. jumlada saddexaad waxay are you hiring? shaqaale miyaad u baahan tihiin? Are you hiring? shaqaale miyaad u baahan tihiin? Are you hiring? shaqaale miyaad u baahan tihiin? jumlada afraad waxay what position are open? What position are open means waxay shaqo noocee ayaa bannaan. What position are open? shaqo noocee ayaa bannaan. What position are open? shaqo noocee ayaa bannaan. jumlada shanaad ahna kan ugu dambaysa waxay can I apply this job? Can I apply this job? Ma codsan karaa shaqadan? Can I apply this job? Can I apply this job? Ma codsan karaa shaqadan? shantii phrasal verbs nisaasiina ku leeyihiin qaybtii vocabulary ku soo dhawaada. shan vocabulary oo fudud iska qaadanaa maybe waxaan maraynaa inay B2 level yihiin. marka shanta vocabulary ana ku dadaalayna qaybtaan WhatsApp group-kana soo dhigtaan sidoo kale ku dadaalayna aad socotaan. waxaan soo kordhiyay sidoo kale mashruuc yar kale cusub kaas ah speaking-keena ku horumarin karno. markaaseen speaking-keena horumarno aad baan uga fikirnaa shumaalmahan baa uga fikirnaa laftarkaygu meel aan practice ku sameeyo aan dadka kula hadlayaan u baahanahay sababtoo ah kaliya tayaan cashar barto oo aan ku hadli waaya waxba ii soo kordhinaysa. markaa waxaan go'aansaday inaan raadiyo method ama hab fudud kaasoo aan ku samayn karno practice aniga iyo idinku inoo wada jira. markaa fikrad yar baa ku dhacay taasoo ah inaan TikTok live soo galo kadibna aan practice ku wada samayno intii Ilaahay u qoray ardayduna chance siiyaan. marka fikradaasna ay ugu soo dhacday fikradaada idinku ay kala qayb qaadan kartaan oo doonaysan inaad practice ka kala qayb qaadataan. TikTok in live ka soo galinaa habeen kasta bacda maghrib yani marka salaada maghrib la soo tukado marka soo tukato ayaan soo galaa live kadibna halkaas ay ku wada hadlaynaa English ku wada sheegaysanaa no Somali just we speak English guys. magaratay taasna marka fikradaas ay ugu soo dhalatay imkana waxaan u gudbaynaa qaybta vocabulary-ga inaan raali noqdo hadaan ku dheereeyay. shanta vocabulary waxa weeyaan contribute ka qayb qaadasho. contribute ka qayb qaadasho. contribute ka qayb qaadasho. ereyga labaad waxa weeyaan evaluate qiimayn. evaluate qiimayn. evaluate qiimayn. ereyga saddexaad waxa weeyaan negotiation wada hadal lagu gaaro yani wax wada hadal lagu gaaro weeyaan negotiation wada hadal lagu gaaro. laba wax baa ka wada hadlaysana tantana wixii baa ku heshiiseen kadib baa qof kale ay yiri wixii maxaa ku heshiisana negotiation ma ka gaarnay go'aan baa ka gaarnay saas kale weeyaan negotiation wax wada hadal laga gaaro. ereyga afraad waxa weeyaan implement fulin ama hirgelin. implement fulin ama hirgelin. implement fulin ama hirgelin. sorry haddii aan si khaldan ugu dhaqaayay sorry to pronounce this wrong way. ereyga shanaad ahna kan ugu dambeeya waxa weeyaan approach. approach waa hab ama dariiqo wax loo sameeyo. approach waa hab ama dariiqo wax loo sameeyo. approach waa hab ama dariiqo wax loo sameeyo. marka shantii vocabulary-gaas inay weegihiin. thanks guys. heer badan baan idin rajaynayaa muuqaalkana ka garbaxa like saaro subscribe ku qarta share garay cid yala share garay karaysaan aad iyo aad u mahadsantihiin.